waxaanu tagnay dalka Turkiya waanu tagnay shir ballaaran oo halkaa ka dhacayay oo ku saabsanaa Falastiin iyo Quds gaar ahaan laakiin intaanan ka hadlin arrinta waxay soo gaadhay war oranaya halka guddoonkii golaha shacabku way kulmeen way isu tageen way wada hadleen waxayna ku heshiiyeen inay khilaafka jira xal ka gaadhaan oo dhameeyaan waan ku hambaliyeynayaa iyaga iyo xubnaha golaha shacabka ee arrintaas qabanqaabiyey iyo cid kasta oo la qabanqaabisay waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya nabad bay rabtaa midnimay rabtaa wada hadal bay rabtaa heshiis bay rabtaa si ay dhibaatada jirta uga baxdo kolkaasi waan soo dhaweynayaa waan ku ammaanayaa waa geesinimo iyo wanaag in labadii iskhilaaftaaba ay khilaafka ka baxaan oo isu tagaan intaa haddii aan idhaahdo on kaga baxo waxaanu tagnay dalka Turkiya magaalada Istanbul oo shir aad u ballaaran oo ku saabsan Falastiin iyo Quds taageeradeeda 70 dal baarlamaanadoodii inay ka soo qayb galeen shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad u ballaaran oo waxa lagaga hadlayay ee la sameynayay ahayd shucuubta Falastiin in la taageero oo adduunku uu taageero oo arrintii gaar ahaan Trump ee ahayd Quds waa caasimadda Israa'iil arrintaasi caalamku way taabatay markaas baarlamaanada adduunku inay arrintaa ay ka hortagaan oo lagu taageero shicibka Falastiin Qudsna inay tahay caasimaddii Falastiin ahaana doonto fikirku halkaasuu fadhiyey waxa weeye waxaa shirkaa furay oo ka soo qayb galay khudbad aad u dheer oo u qiimo badanna ka jeediyey madaxweynaha dalka Turkiya oo aad iyo aad arrintaa ugu dheeraaday si geesinimo leh oo aan gabasho lahayna arrintaasi u difaacay u soo dhigay miiska baarlamaanada adduunka baarlamaan kastaaba guddoonkiisii wuxuu ka jeediyey khudbo yacni arrintaas Falastiin saameynaysa oo cid waliba ay ku taageertay oo fikirkaas Erdogan uu soo jeediyey iyo guddoomiyaha baarlamaanka Falastiin labadoodaasiba ay soo jeediyeen ayaa si xoog leh loogu taageeray oo khudbadihii halkaasa lagu soo jeediyey waxaa intaa dheer baarlamaan kasta waxaa loo shiray qaarad waxaana la isku raacay yacni in baarlamaan kasta uu sameeyo guddi arrimaha Falastiin taageeradeeda soo bandhiga oo kolkaa noqda la soo jeediyo oo cid waliba ay shuruucdeeda ku darsato yacni arrinta Falastiin iyo Quds inay tahay caasimadda Falastiin waxaana kolkaasi qaarad baa loo fadhiistay waxaa la yidhi markaa cid waliba qof yacni markaasi shirkaas wakiil ka noqda oo kolkaasi waxa baarlamaankaasi uu rabo halkaas lagu soo ururiyo annagu wakiil waxaan ka dhignay yacni labada aqalba guddigaa ka qayb galay labada aqal buu ka koobnaa waxaan ninka la yidhaha dalxa ayaan idhuguna matalayaa waa samaynta guddiyada warkuna kolkaa wuxuu ku soo ururay Soomaaliya waxaa yacni baarlamaanada
siday tiradoodu tahay ayay xubnahoodu noqonayaan. markaa Soomaaliya waxay la siiyey oo yeelanaysaa 15 xubnood ayay yeelanaysaa. waxa weeye 15 kaasoo kolka dabcan labada aqal oo qaybinayo oo ay noqonayso markaa guddigaa aynu dooranaa aynu samaynaa. waxa weeye arrinta Falastiin ayuu noqonayaa inuu mar kastaba 3 biloodbana mar bay isu iman doonaan guddiyadaas isu imanayaan. marka arrintaasi halkaasay ahayd. waxaa cajaa'ib lahayd guddoomiyaha baarlamaanka Senegal ayaa guddoomiyaasha sidaasaa loo safay oo safka horaan fadhinay. nasiib wanaag anigiiyo isagu waanu isbarbar fadhinay. waxaa cajaa'ib leh wuxuu yidhi oo aniga aada ii taabatay. wuxuu yidhi 74 ayaan ka mid ahaa wafdigii madaxweynihii Senegal ee yimid shirkii OAU-da ee 74. wuxuu yidhi Muqdisho waxay ahayd magaaladii Afrika ugu qurxoonayd, ugu nabadgelyada badnayd, ugu nadiifsanayd. waxaad ahaydeen dowlad hoggaamisa Afrika oo Afrika kulligeed idin wada daba taagnayd. waxaan garan waayey dadku miyuuna dadkii ahayn, dalku miyuuna dalkii ahayn. 28 sano sidee baa dadkii sidaa ahaan jiray xabadii uga socotaa oo isu dila? waa arrin aniga waa i taabatay. infact shirkaa u sheegayana waan joogay, waa fadhiyey. waa yacni arrin cajaa'ib la weeye. waxaan idhi malaha dadku dadkii ma aha. ereygaasaan ayaan idhi waa arrin yaab leh. Soomaaliyey waxaan qabaa inta aynu inagu isku foogannahay adduunkii waa tegey. waxaan soo jeedinayaa oon guud ahaan Soomaaliya oo dhan leeyahay, horta marka ugu horeysa qabiil kaga bixin mayno dhibaato, qabiil kagama baxayno dhibaato. ishaysadkeennu salkiisu qabiil buu noqday. marka waxaan leeyahay Soomaaliya arrintaa ha ka baxdo oo danteeda iyo horumarkeeda iyo khayraadkeeda dalkeeda ku jira hala soo baxo. waxaa kale een aniga waa 2012 markii dowladda Soomaaliya la yidhi waa dowlad rasmi ah. Jawaari oo guddoomiyihii baarlamaanka ahaa wuxuu yidhi laba baarlamaan bayna marti qaaday. baarlamaanka Ingiriiska oo oversight-ka ku fiican iyo baarlamaanka Norway oo ku fiican maxaa la yidhahaa heshiisiid ku fiican. kaasaynu ka horeynaynaa buu yidhi. waan tagnay. infact waxaa kaloo dhan ka hadli maayo xaaladdu siday ahayd, laakiin arrin waagaana i taabatay ayaan sheegayaa oo aan ka hadlayaa oo ahayd 3 qof oo laba badda ka socota iyo nin geologist ah ayaa noo yimid. kii geologist ahaabaa halkaa wuxuu ku daartay bahalkanaad tuurtaad wuxuu ku soo saaray Somalia is a very rich country. 7 macdanood oo kuwa qaaligii ku jiraan iyo wuxuu yidhi natural gas qayr caadi ah iyo shidaal qayr caadi ah ayaad leedihiin.
laakiin waxaad kula soo bixi kartaa nabad idinkoo nabad noqda weeye waxa weeye waa arrin weli taagan oo u baahan inaynu nabad helo oo kolkaasi aynu la soo baxno khayraadka dalkeenna ka buuxa inaynu la soo baxno ayaynu u baahannahay waxaan kale leeyahay ma u baahnin awood ma u baahnin ee waxaynu u baahannahay heshiis iyo wada hadal aad iyo aad baad umahadsantihiin infact waan yani dalka turkiga si kayr caadiya naloogu soo dhaweeyey oo aad iyo aada u sarreysa idinkuna waad mahadsantihiin yani joogistiinaan halkaneed soo dhaweysay